ee dhageystay barnaamijkii aynu ku baahinaynay dib u dhiska masaajidka su-aalahaas oo sharciyan in looga jawaabo mudan su-aasha hore waxay ahayd masaajid baa ku dhawaaqdeen in la dhisayo suuqii waaheenna wuu gubtay idinku miyadaan la dareen ba ahayn dadka waa wax la isweydiin karo waxaan leenahay idinkiinaa naga foga la dhan jooga annagaa idinka dareen badan soo jawaab saxa maaha innaga iyagan hargeysa joognaa idinka dareen badan tusaale anigoo kale ka soo qaad marka ummadda kale aynu ehelkanay laga yimaado faamiligayga reer dirir 8 dukaan baa ka gubtay ma filaysaa oo kuwa abtiga ahaa iyo kuwa ilmaatiga ahayn iyo u badan 8 dukaan oo dadkii barakacayaleeyihiin xaafadaha joogaan wadad kala hore sekada bixinaya maantana iyaga aynu siinayno waxa labaadoo jira de xafiiskii shareecada dadweynaha aanu ku qaabilaynay maalintii walba 40 qof mid su'aal weydiinaya mid shareecada nagala tashanaya mid dad la kala saarayo hawadu ka baxay Soomaha idan culimaduna barakacayaasha ay ku jiraan taasina miyaanay dareen ahayn waa laba dareen oo waaweyn oo ninka la dhan jooga anigu aan uga dareen badana Soomaalidu waxa kale yiraahdaan waqtigu ninku ag yaalo ayuu u uraa qof kasto shucuur leh ka dibadda isaga ka dareen badan oo halkan jooga sidaa daraadeed culimadu doorkooda ay qaateen iyo caamo iyo madax iyo raaciyad dadka dibadda walaalaheen aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin ka halkan ka jooga baa ka sii warwar badan oo daqiiqiiba ku baxaya marka intii maynaan fariisana dee tasriixaad baanu bixinayno dadka waa u jawaabaynaayo markii labaad aanu lacag gaarsiiyaan uu gaar ahaan weeye maanta waa daawanayseenoo dee lacag la igu soo hagaajiyo $81,000 oo ganacsada reer China Soomaalida igu soo hagaajiyeen baan guddida ku wareejinay marka taa la dareen ma idin halkaas horta ku hadhay waayahay tulabaad bay markaa walaalaheenina su'aaleen oo ah lacag taana jawaabteeda sharciga ah waxa weeye qofku hadduu cilmi doonayo waa in looga jawaabaa marka hore lacagta ayaa bixiyay waxa u badnaa 3 kambani baynu khayr Allah siiyo arinta ka sii horeysan horta baraarujin laha waxay waqtiga lacagtan la ururiyay waqtiga barnaamijkan jiray uu ka horeeyay arintan dad badan baa haysteen uu ka dambeeyay ama imika la bilaabayo tiimika la bilaabila waa inagan joojino sababtan idin ogeysiiyay waxay qaaraankii masaajidka aynu weydiin jirnay baynu sanadkan iska daynay arintan daraadeed laakiin arintan way ka horeysay walaalaheenii shirkadaha waaweyn lacagta masaajidka ugu yaboheen koow haddana waxa yimi abaarihii intii leeg bay ugu yaboheen laba haddana waxa yimi halkan gubatay intii leeg bay ugu yaboheen yaani fiicnayn marka waqti hore ay ahayd wixii ka dambeeyay waa mirka labaad oo waxaan u maleeyahay intaan waxan iba dhicin ka hor baan xataa heshiiska saxeexnay taana way la ogaadeen maaha wax imika la bilaabayo wixii la bilaabi lahaana waa inaga nidhi priority-ga ama ahmiyadda aan siina hawlahan qaa'imkee taagan kadibna waxayna kalaan xagga dambe ka dhamaystirano su-aasha kale odhanaysa lacagta la hayo ma lagu wareejin karaa xaggan sharci ahaan maya oo waxay culimada fuqahadu yidhaahdaan dee dhalinyaro badan oo jaamacadaha diinigaa dhigata idinku jireen waa akhrideen kolley kiya sida qofka xorta ahay wax malkiyo laakiin sida agoonka waxba ma bixin karo marka haddii lacag masaajidka loogu deeqo waxay la mid noqotay masaajidkan dhisan oo kale kan imika haddaynu idhaahno aan xaraashno dad u qaybina ka hor dadku madaxay qabsanayaan masaajidkan gebigiisaba intaynu iibinno dadka duruufaysan aan u qaybina haddaynu idhaahno dee sida sharcigu u diidayaa buu caqliguna u diidayaa lacagtaa waxaa la mida ta loogu yabahay akoonka u taalla hadday masaajidkanta iyo masaajidada debadda hadday tahay waxa u yaalla masjidka waa waxuu leeyahay uu la wareegay ilaahay bay ku wareegtay waxaa la yidhaahdaa laa yubaacu walaa yuhab lamana iibin karo waqafka lamana hibeeyo taasina jawaabteedu waa caynkaasoo mar haddii masjid wax la siiyo lama bedeli karo qof iska daaya masjid kale in lagu wareejiyo kutubta masaajidkan iyo alaabta masaajidkan ayaa doodi ka taagantay culimada dhexdooda oo qaarna leeyihin war waa alaabtii ilaahay une masaajidada aanu kala qaadno qolyana ay leeyihin masaajidkaasoo qura lagu daynaya marka masaajidku hadduu wax milkiyo waa agoon qof keliya wax ka qaadan karo qofka u shaqeeya ah
qof aan u shaqaynin waxba kama qaadan kara xataa kaasina waxa weeyaan waxaa masaajidka usoo xarooday ma la wareejin karaayo masaladaasina waa caynkaa nasiib wanaag ilaahay iyo addoomaha iska horgeyn mayno intaynu ilaahay siinayna waynu siino isagaa baynu ka baryaynaa inuu inoo badiyo addoomaheennina iyo ehelkeennana waynu siinaynaa sida aan shirkadahaan sheegayaaba ay u bixiyeen khayr allah siiye intaa waxaa sii raaca masaajidada iyo dhismahooda waxaa iska yaro jirta fikrad odhanaysa masaajidba uma baahnin beryahan dambe warniyo masaajidkan aynagu wareysa iska dhaafo oo xanaanooyinka iyo dhakhtarada iyo jidadka iyo waxaasoo dhan dhisa haddaynu masaajid kana dhisno xanaanooyin kana dhisno waddooyin kana dhisno ceelasha biyahana dhisno miyaanay sax ahayn aynu camirno taas ma saxbaa fikirkaasaa markaa yar wareegaya xoogaa kudna wuu dilay waana loo yar weheliyaa meel aan rabay roobigu yaro eri baa yaro jirta markaa masaajid la dir baa fikrad noocaasa innagoo walaalaheenna su-aashayna soo weydiiye ku tuhmaynin inay dadka u damqanayaanuun u aaminsan ama dee u arkayna haddana fikradda noocaasi way yar iman kartaa masaajid meesha looga baahan yahay in laga dhiso wey aniguba waan qabaa masaajidka meelaan looga baahnay inaan laga dhisin waxaan arkaa magaalada koonayaasheeda qof muxsina intoo lacag laga soo qaaday in meelaan shacabba joogin masaajid laga dhisay oo cidlo ah oo aad odhanayso dee qofkani wuxuu u baahnaa waqafkiisan in loo camire maxaa halka looga dhisay taasoo kale sax maaha waa meherad ilaahay oo ajri lagu doonayo meel ay ku camir mayso oo qofkii muxsinka ahaana ajri uga soconayo ummadduna ka intifaacsanayso waa in la geeyaa laakiin meesha looga baahan yahay baahi aada u daruuriya maxaynu odhan karnaa maan ka dayno miyaynu odhan karnaa dee keenanoo kale kasoo iyo 10 sannadood ka hor buuri masaajidka aan dhiso masaajidka dadkii uu fatahay wuu buuxsamay maalin walba bannaankaanu ku tukannaa annagaa dhisaynoo duminayna waa 15 sano ka hor waxaan ku uhi noo yarkaadiio intanaynu horta kusii yar loodinayna lacagta meelo kale soo warwareejiya ilaahay mi ku qadaray waayo labada baahiyood midi waa habku u dhisan yahay oo dagaaladii ka hor buu ahaa dhismaha masaajidku madaafiic baa ku dhacday anaaba goobjoog u ahaa iyadoo madfax ku dhacayo aanu ku tukanayno 30 sano ka hor mixraabkaan galay aniyo sheekh maxamuud aw suufi allah cafiya yar xanuunsanayaa xafidahu llah ayaa nagoo tukanaynaa laba colis heleen colna stationkuu soo galay colna gargaar buu soo galay madaafiicdii baa la isku hurgufay markii aan faatixadii akhriyaynu waladaalli buu midi soo bilaabay taydhisaba madfacan weyn garararownintii bay goosteen jamici madaafiicdaas waxay keentay inuu nuglaado raggii masaajidka berigaa dhisaya waxay dhahan laguma aamini kara dadka shacabka inta la markuu tukanayo iminka islaamkiisan sareed uu gariirayaa markaa waxaa khatarban ay ku sheegeen injineeradu inuu dadka la dumi karo taasi waa baahida koobaad baahida labaad masaajidku haddadaan idinla hadlayo dadku bannaankay fadhiyaan ma egteen dabaqa hoose wuu buuxaa dabaqan sarena wuu buuxaa shacab badan baa bannaanka jooga oo ku tukanaya ilaa halkaa dambe ee dhasbiinku yaallo dadkaasi marka roobku yimaado nin waliba sijaadiisu la carara way firdhadaan soo maaha jumcadiina waa saasoo kale anaaba ka naxa markaan soo gelayo dadkoo ilaa baarkinka shishee qoraxda kartoon isaga dhigaya marka arrintaasina waa baahi labaad oo keenaysa in isbeddel la keeno dadku way ugu canaananayeen in badan dibudhis sameeya maxaa ku soo ururiya haddii la idhaa dee idinkaa la idin weydiin doonaa anugu ila miskiinkaasana waxba idiin kordhin maaye waxaa la odhan karaa malaa nadaafadda iyo masaajidka shaqaaluhu si fiican u shaqaynayaan iyo qaarigan codka macaan khayr allaa siiye ayaa u soo ururaysa marka taa dadweynaha la weydiin doonaa sababta ku soo ururisee baahidaasina way jirtaa intaa markaan ka sii gudbo masaajidada meelaha looga baahan yahay waa laga dhisayaaba in leen meelahan looga baahnayna yaan laga dhisi diinta iyo dunyadana yaynaan iska horgeyn ilaahay iyo addoomahana yaynaan iska horgeyn laakiin diinta aan camirno dalka aan camirno dadka aan camirno weliba diintu waa doorkeenna koob horreyn uu sameeyaa soomaydaan qaxin in badanoo ka mid ima qaxin waxa u horreeya la sameeyaa in meelo la harsado oo guryo yaro la dhisto oo wax la isku hagaajiyo islaamihii iyo raggii dadkii qaxoontigaa nebigu mabuu xusuusana masaajid buu bilaabay horta kaalintaasu ku leeyahay masjidku islaamka dhexdiisa ee wax sahlan ma aha
masaajidadu in la dhiso oo meelaha muhiimkaa laga dhiso oo la wanaajiyo wanaajin markaynu ka hadlayna iyo qurxinna waa wixii sharcigu ogol yahay mar walba kitaabkaynu eegaynaa muxuu sharcigu ogol yahay hadday dhismo tahay iyo hadday qurxin tahayba taasina waa caynkaa inagu soomaalida marka la eego masaajidadu door aada u muhiimo caalamka ka duwan bay inoogu jiraan arrintaa ayaan la ilaawin doorka inoogu jiraan waxa weeye ubadkeenna qur-aanka lagu baraa kutubta maraajicda jaamacadaha lagu barto qaybta u muhiimsan culimadeenii hore khayr allah siya masaajidada ku akhri jireen iyo geedka marka ilaa hadda cilmiga ugu muhiimsana rasiinka ah ee mugga leh xalqadaha masaajidka laga qaataa oo aanay ka maarmayn xataa ardayda akaademiyiinta ah ee jaamacadaha markaa haddii masaajidadu yaraadaan macnaheedu waxa weeye qur-aankii iyo cilmigii bilaashka lagu baranayay ayaa meesha ka baxay oo yaraanaya dad badan baa iyagoon jaamacadaba gelin macaahidna gelin halkan xufaadoo ka soo baxa shuyuukh iyo culamaahoo ka soo baxa marka doorkaa muhiimka ana wuu inoo leeyahay masjidku dee tawciyadii iyo ugu dambayntii musaacadaadka qof waloo yaabiyaabaaba wuxuu idhaahdaa waar masaajidka waxa layga ururiyo intaasoo jeer baynu qof rafaatan uga ururinaa mashruuc la dhisaya uga ururinaa wax weyn weeye ugu dambayntii masaajid yaa dhisa marka mujtamaceenna soomaalidaa la eego maalan xanaarada iyo cusbitaalka iyo waddada iyo ceelasha biyaha saddex qolaa isugu taga waxaa isugu taga dowladaha jinadiga dabadda inooga soo gurmada iyo hay-adaha samafalka iyo xukuumaddu miyay dhisaan hay-adda laguma hadlaynayo dowladaha jinada laguma hadlaynayo xukuumadeennana bajetka uguma jirto waynuu cudurdaariya bajetkoodaa yar baynu odhan karnaa iyagana bajetka uguma jirto masaajidada iyo goobihii diinta iyo waxaa isku soo hadhay dadweynaha markaa dadweynahana haddii dhegta loo saaro la ydhaha masjid looma baahnaa macnaheedu waxa weeye fansalakha minha diintii unha laga siibteeye muqadasaadkii iyo goobaheedii markaa radiniga ma aha laakiin su-aashiina waan ka jawaabaan filaya asraarta meesha ku jirtana waan yala iftiimiyey walaagaan waynu ku mahadinaynaa waanaynu ugu ducaynaynaa waxaanunu leenahay halkaa ka sii wada cid waloo dabadii iyo guda ay wax gaadhaanna aynu isu garabsanno inaynu taakulayno oo aynu wax ku tarno dhammaantiinna aad baa u mahadsan tihiin ramadaanu mubaarak wataqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat